السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز السود واضح أدي هذا سنتهين ما نحرب أن نذكر وذاقه هول قلدي إذا ماذا آيس قبل لابين مقالوين كمتانها مينيابوليس سين بول أو دنيا أد أفر بدن أو صومالية لقو قبقبتي هدبه haddii aad Minneapolis ama St. Paul ku dhex soconayso ma lagaaga baahan yahay sharcigaada inaad qaadato arrimahaasi ayaan idinla wadaagayaa iyo baaritaano kala duwan oo Soomaalida Minnesota ku socdo dadka viisayaasha ku yimid waa la baarayaa dadka CDL-ka ama laysanka taraagyada wata waa la baarayaa waxa sidoo kale la baarayaa lacagihii BB loans-ka la yiraahdo oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar in lagu kabo xilligii coronavirus-ka musuqmaasuqa ay sameeyeen Soomaalidii ma ku lug lahayd sidoo kale arintaasi BB loan-ka waan idinla wadaagayaa sidoo kale waxa sidoo kale jirta in food stamp-ka laga yaabo toddobaadka soo socda dhammaanba gobolada dimuqraadiga kaarka cuntada in laga jarto maxay tahay waxyaabaha ay ka dalbatay wasaaradda beeraha oo lacagahaasi bixiso isla markaana ay goboladaasi ay u soo diri waayeen arrimahaasi oo idil ayaan idinla wadaagayaa balse marka hore soo rasmiya magaalooyinka St. Paul iyo Minneapolis uga bilowday howlgalada lagu bartilmaameysanayo dadka sharci darrada wadanka Mareykanka ku soo galay ee ku nool magaalooyinkaasi St. Paul iyo Minneapolis gaar ahaan Soomaalida ayaa la bartilmaameedsanaya wararka aan helayo waxay sheegayaan tobanaan dhalinyaro ah in ilaa iyo xalay la xiray oo guryahooda loogu tagay horta waxa uu yahay howlgalkan howlgal oo bartilmaameed ah waa targeted operation ilaa iyo 100 askari oo ciidamada aysa kuwa DHS-ta iyo kuwa xuduudaha ilaaliya ayaana ka qayb galaya macnaheedu waxay tahay targeted markuu yahay dadka ay u socdaan waa ay garanayaan xilliyada habeenkii ayayna howlgaladan ay sameynayaan dadka maadaama adereesyadooda ay hayaan iyo taleefanadooda mararka qaar xitaa tracking ayay ku sameyn karaan qofkan guriga ma jooga mise ma joogo marka si rasmi ah ayaa loogu tagaya adereesyadooda oo lagala soo baxaya goobaha ganacsiga ayaa loogu tagi karaa meelaha ay ka shaqeeyaan xitaa suuqa weyn ee Carmel Mall waa ay tageen shalay inkastoo aysan gudaha u gelin markii dambe maayarka iyo taliyaha booliska ay tageen aan arkayay oo dadka xuquuqdooda loo sheegay marka haddii aad magaalada dhex socoto way ku istaajin karaan marka haddii aad sharci leedahay baasaboorka dadku inta badan ma wada wataan laakiin ID-ga baasaboorka haddii aad wadato ayaa ugu muhiimsan haddii aad green card leedahayna green card-kaada wado laakiin adigoo sharci leh oo haddaad sharcigaadii ay kaa waayaan intay ku istaajiyaan xitaa sidoo kale waa ay ku xiri karaan marka howlgalkaasi waa uu socdaa inta uu socon doono lama ogo Trump waxaan ognahay shalay Soomaalida inuu caawiray wadankoodana waa soo uraya iyaguna qashin waaye marka ma doonayna wadankeena kama rabnay wadankooda dib ugu laabtaan ee xadistaana waa kii yiri Irhaan xitaa qashin ku tilmaamay marka howlgalkaasi waa uu socdaa dadka qaar waxay leeyihiin 100 dhalinyaro Soomaali ah ka badan ayaa la xiray 24 saac ee la soo dhaafay ama labadii maalmood ee la soo dhaafay laakiin wili tira rasmi ah lama hayo kulay ICE marka howlgaladooda ay soo gabagabeeyaan ay waxay ka warbixiyaan tirada dadka ay qabteen marka xuquuqdaada ugu gurigaada waxaad xaq u leedahay hadii lagu soo garaaco inaadan furin inaadan hadlin hadii lagu qabto ilaa iyo lawyer-kaada aad la xiriirto ama sidoo kale shalay sida maayarka uu sheegay lawyer ay leeyihiin free ah oo lala xiriiri karo marka xuquuqahaasi oo idil waa aad leedahay marka xuquuqdaadana ogow dadka sharciga lehna waxaan kula talinayaa sharcigooda in ay horay u sii qaataan hadii magaalada ay aadayaan dadka wadooyinka mara ICE way istaajinayaan oo wadooyinka maraya hadii ay ka waayaan sharcigaada waa ay ku xiri karaan marka isla markaana hays adkeynino inaad dagaalanto ha isku dayin arrintaasi dambi kale ayay ku keeni kartaa oo waa lagu xiri karaa waxa lagu soo odeyn karaa inaad askari dawladda aad ka hor istaagtay in uu waajibkiisa guto marka arrimahaas oo idil waxyaabo lagu eedeyn karo waa marka howlgalkuna waa uu socdaa inta uu socon doono lama ogo marka sida hadii uu jiro qof ehelkiisa ama saaxiibkiisa ama qof uu yaqaano la xiray oo doonaya inuu wareysi bixiyo uu ila soo xiriiri karaa wareysigaasina waan ka qaadayaa hadii alla idmo intaasi hadii arrintaasi aan ka gudbo Minnesota baaritaankan oo kaliya kama socdo baaritaano kala duwan ayaa ka socdo dawladda federaalka waxay ka baaraysaa dhinacyo kala duwan siba Soomaalida ayaa lagu bartilmaameedsanaya shalay wasiirka amniga gudaha shirkii golaha wasiirada oo Trump aqalka cad kula yeeshay golahiisa wasiirada oo 2 saacadood ka badan qaatay wasiirka amniga waxa ay sheegtay in ilaa hadda 2 milyan oo qof wadanka ay si mutadawacnimo isaga masaafuriyeen waxay kaloo sheegtay in askarigii ugu dambeeyay ciidamada ICE 10,000 oo askari askarta cusub oo ay qaadanayeen 10 maalmood ee soo socota la shaqaaleysiin doono marka ciidamo ku filan ICE waa ay haystaa howlgalo ay ku sameeyaan
magaalooyinka iyo gobolada dimuqraadiga ayayna inta badan ay ka sameynayaan marka waxa ay ka dhawaajisay arrin ah dadka viisayaasha ku yimid gobolka Minnesota in baaritaan lagu sameynayo Soomaalidii viisayaasha ku timid hadda waa la soo galay marka waxay tiri madaxweyne sidii aad igu amartay in aan baaro musuqmaasuqa dhinaca viisayaasha ah ee ka jira gobolka Minnesota waxaan ogaanay ay leedahay in 50% dadka viisayaasha ku yimid ay arrintaasi tahay sharci darro oo viisayaashoodu ay yihiin 50% dadka ku yimid in qaab sharci darro ah ay ku yimaadeen waxana ay weerartay gudoomiyaha gobolkaasi oo ay ku tilmaantay in uu yahay mid doqona ama arrintan uu ku talagal u sameeyay laakiin waxaan u malaynayaa in uu labaduba uu isku yahay markaasi qosol xitaa waa la qoslay marka waxa ay sheegtay in ay jiraan dad si aan loo baahnayn inay wadankan yimaadaan oo si sharci darro ah ku yimid waxayna sheeganayaan qof aysan ahayn macnahooda magacooda magac ay ahayn ay ku yimaadeen amaba sidoo kale in ay walaalkood guursadeen sheekada hadda leeyahay ilhaan ayaa walaalkeed ku keentay Mareykanka in uu qabo marka laba qof oo walaalaha oo Mareykanka isku keenay inay isqabaan iyo arrimo noocaasi ah ayaan ogaanay ay leedahay oo musuqmaasuqa waxa jiro sidoo kale leedahay application fara badan oo dawladda lacag looga qaatay inta xilligii coronavirus-ka uu jiray marka arrintaasina dawladdu barnaamijyo ay bixinaysay application been abuur ah oo lagu qaatayna waa ambaareyna marka waxa yiri malaayiin dollar ayaa lagu qaatay applicationadaasi isla markaana dawladda lacagtii canshuur bixiyaasha marka waxay tiri dadkaasi wadanka waa ka saareyna lacagteennina dib aan u soo ceshanayna marka dadka iyagoo wadanka yimid isla markaana sharci qaata ay leedahay oo si been abuur ah dawladda lacag uga musuqmaasuqay wadanka waan ka masaafurinayna sida sharcigaana musuqmaasuq federaal ah hadii aad ku lug yeelato dawladdu sharcigaada waa ay kala laaban kartaa qofku markuu xabsigiisa dhameystay hadii la rabo waa la masaafurin karaa marka sida muuqata waxay leedahay sanadka soo socda waxaan ku dadaaleynaa inaan hoggaanka goboladaasi aan u dhiibno qof wadankiisa jecel wadankiisana difaacaya marka doorashooyinka soo socda waxay leedahay marka maadaama inkastoo shacabku ay codkooda dhiibanayaan dawladdu qof aysan gobolka u magacaabaynin waxay leedahay dad wadankooda jecel isla markaana difaacaya waa in maamulka goboladaasi loo dhiiba waxaan ognahay sanadka soo socda dhamaadkiisana doorasho ayaa dhici doonta marka wasiirka amniga oo arrimahaasi ka hadlaysay bal wax yar la daawada shirka golaha wasiirada Trump oo la yeeshayna shalay ka hadlaysay 2 million people have gone home already. The people that were here illegally, you've removed from our country and sent home. And we're going to send more home for the holidays too, and make sure that they get to be with their families in their countries. Yes. That's right. Pam, that's right. Terrible, horrible people. We're going to hire our 10,000th ICE officer will be on the job within 10 days. So we have hired 10,000. We've had hundreds of thousands of applications. You told me to look into Minnesota and their fraud on visas and their programs. 50% of them are fraudulent, which means that wacko Governor Walz either is an idiot or he did it on purpose. And I think he's both, sir. He brought people in there illegally that never should have been in this country, said they were somebody that they're not. They said they were married to somebody who was their brother or somebody else. Fraudulent visa applications, signed up for government programs, took hundreds of billions of dollars from the taxpayers, and we're going to remove them and we're going to get our money back. And we're going to, this next year, make sure that we only put people in leadership positions in this country that love this country and have its back. dhinaca kale shirka golaha wasiirada shalay inta badan wasiirada ayaa madaxweynuhu warbixin uu ka dhageysanayay marka wasiirka beeraha haweeneyda la yiraahdo Brooke Rollins ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in musuqmaasuq baahsan uu ka jiro kaarka cuntada dadka qaata ama food stamp ama SNAP loo yaqaano 42 milyan oo qof ayaa Mareykanka qaata marka waxay tiri madaxweyne intii aad wadanka madaxweyne ka noqotay 800,000 ayaa laga jaray kaarkaasi cuntada waxaana ogaanay 186,000 oo qof oo dad dhintay social security-kooda in lagu qaadanayo kaarkaasi cuntada waxayna sidoo kale sheegtay in dad 500,000 oo ilaa 6 gobol oo gobolada Mareykanka ku nool in laba mar lacagta loogu talagalay ka badan ay qaadanayeen marka sidaa darteed waxay tiri si musuqmaasuqa aan kaarka cuntada aan uga baabi'ino waxaan bishii February dhamaanba 50 gobol aan ka codsanay inay nala wadaagaan xogta dadka qaata food stamp-ka kaarkaasi cuntada dadka qaata marka waxay sheegtay 29 gobol oo gobolada Republicaanka inay arrintaas u hoggaansameen oo xogtii ay nala wadaageen
21 gobol oo kuwa dimuqraadiga ay diideen inay nala wadaagaan sidaas darteed waxay tiri laga bilaabo toddobaadka soo socda waxaan lacagaha federaalka gaar ahaan kuwa food stamp-ka aan ka jari doonaa goboladaasi aan u hoggaansamin amarkeena isla markaana lacagtaasi ma siin doono waxay sidoo kale ay doonayaan in dadka qaata food stamp-ka magacyadooda addresskooda iyo immigration statuskooda inay wadanka sharci ku joogaan ama inaysan sharci ku joogin inay ogaadaan marka waxay leeyihiin gobolada Republicaanka oo 29 gobol waa ay u hoggaansameen amarkeena laakiin 21 gobol oo ay ka magacawday California, New York iyo Minnesota uma hoggaansamin toddobaadka soo socda haddii ay xogtaasi noo soo diri waayaanna si aan u kala ogaano dadkan yahay food stamp-ka lacagtaasi kaarka cuntada loogu shubayo lacagtaasi waan ka jaran doonaa ayay tiri marka iyadoo golaha wasiirada ka hadlaysana wasiirka beeraha Brooke Rollins iyaduna waxay tiri oo arrimahaasi ka hadlaysa. And then the third thing, we have so much great things to talk about at USDA, but the third thing, which became very much a part of the national conversation during the Democrat shutdown, was SNAP reform, food stamp reform. When all of America saw what so many of us know and have been working on, but when you have so much rampant fraud in a program that 42 million Americans participate in, now a big good piece of news that I hope is written about, since you became president, about 800,000 of those 42 million have moved off of food stamps, which is hopefully the plan with better jobs, higher wages, etc. But still, when we found 186,000 dead people's social security numbers being used, 500,000 people receiving benefits more than twice. We had a couple of people receiving benefits in 6 states. In February of this year, we asked for all the states for the first time to turn over their data to the federal government, to let the USDA partner with them to root out this fraud, to make sure that those who really need food stamps are getting them, but also to ensure that the American taxpayer is protected. 29 states said yes, not surprisingly, the red states, and that's where all of that data, that fraud comes from. But 21 states, including California, New York, and Minnesota, the blue states, continue to say no. So as of next week, we have begun and will begin to stop moving federal funds into those states until they comply and they tell us and allow us to partner with them to root out this fraud and to protect the American taxpayer. sidoo kale waxaa jira baaritaano kala duwan oo dowladda federaalka ay ku dhawaaqday inay ka sameynayso gobolka Minnesota inta badanna dadka sharci la'aanta ah lagu bartilmaameedsanayo waxaa jirta waxaan ognahay wasiirka maaliyadda in uu ku dhawaaqay in uu baarayo qoraalkii uu qoray wargeyska City Journal oo ahayd lacagtii canshuur bixiyaasha gobolka Minnesota in ururka argagixisada uu Mareykanku ku aqoonsan yahay Soomaaliya ka dagaalamo al-shabaab in lagu maalgeliyay arintaasina baaritaan ay ku sameyn doonaan taasi wasaaradda maaliyadda ayaa baaritaan ku sameynaysa sidoo kale wasiirka gaadiidka Sean Duffy ayaa isaguna waxa uu sheegay in baaritaan ay ku sameynayaan dadka haysta leesinka taraagada ee ku nool gobolka Minnesota waxa uu sheegay 3 meelood marka loo dhigo meel kamid ah si sharci darro ah inay ku qaateen leesinkaasi waxa uu yiri dadkaasi kaarkooda shaqada marka uu ka dhacay kadib ay leesin haystaan oo gawaarida ay iska wadaan waraaq ayaa waxa uu diray gudoomiyaha gobolkaasi Tim Walz iyo sidoo kalena in madaxa public safety-ga ninka la yiraahdo Bob Jacobson uu leeyahay 30 maalmood ayaan idin siinayna waxaan rabnaa in arintaasi soo cadeysaan hadii kale 30.4 milyan oo gobolka Minnesota lagu siiyo highway-ga in waa idinka joojin doona marka 30kaasi maalmood ayay haystaan waxana uu sheegay in dadkaasi aan ay u qalmin sida wadamada la magacaabo waxa kamid ah Soomaalida, Ukraine iyo El Salvador marka dadka ajnabiga ah ee wadanka sharci darrada ku soo galay ee gawaarida wada waxa ay leeyihiin wasiirka waxa uu shalay shirka golaha wasiirada uu ka sheegay wasiirka gaadiidka